soo gelitaanka Etoobiyaanku ay soo galayaan Soomaaliya waa arrin aan marnaba la taageeri karin isla markaasna aan u baahnayn in laga aamusay u baahan in kor loo qayliyo iyo wixii laga qaban karan ummadda la gaarsiiyo mar walba loo istaagsanaado way waana arrin runtii aynu muddooyinkii la soo dhaafay oo dhan aynu ka hadlaynay Etoobiyaanku dalka way soo galayaan dagaalka lagu qaaday waxa la yiraahdaa Somali state wuxuu dhali doonaa in Etoobiyaanka dalka soo galaan waxaanu strategy Etoobiyaanku sameeyeen ma dawladda Masar ba soo abaabulaysa waxaan waxay ka imaanayaan dhowrkii asbuuc la soo dhaafay faaqayntii aynu wadnay ba sida sheegaysay ma ahan marka wax caawa iska yimaaday oo aynu ku waabarisanay saaka iyo shalas wax ma ahaneen wax muddooyinkii dambe la soo dhaafay oo aynu ka sheekeynay way waxaan marka hore ballan in la wadaago bal muuqaalkan ila daawada aan idin sheegay muddo ka hor in waxa dhacay maanta taagan waxa muuqata in dagaalkan uu yahay mid uu ka dambeeyo qorshe lagu doonayo markaas in ciidamo badan Etoobiyaan ah ay soo galaan gudaha dalka Soomaaliya aragtida maalinkan aan qabay oo idin lahaa Etoobiyaanku dalka way soo gali doonaan dagaalkana waa dagaal aad moodid in looga shaqeynayo lagu doonayo in Etoobiyaanku dalka soo galaan ma aysan ahayn aragti aysan dadka aysan wada arkinin laakiin wax black and white ah banaanka iska yaala bay ahayd waynu maanta waxa dhacaya aynu ka qiyaas qaadan karnaa maxay bari inoo keenayaan waxa marka isweydiin mudan maxay dawladeen uga aamusnayd ilaa iyo marka maxay ilaa hadda uga aamusanta raalli bay ka tahaa madaxweynuhu Xasan Sheekh Maxamuud raalli buu ka yahay uu ku qanacsan yahay in dalka iyo waliba koonfurta Soomaaliya oo dhan ay Etoobiyaanku soo galaan oo ay qabsadaan miyuu doonaya waa maxay aragtidiisa ma garanayo boqorsho wax ka ogaa ma garanayo raalli buu ka yahay ma garanayo wuxuu la aamusan yahay cid garan kartaa ma ay jirto waxa jira dad leh dawladda hal lagu garab istaago qadiyada Etoobiyaanka ah ee dalka ay soo galayaan dawladda hal lagu garab istaago dad ba aragtooyinka soo gudbinaya qoraalan qaybaha muuqaalad arkaysa baraha bulshada siyaabo kala duwan ay dadku uga falcelinayaan laakiin su'aashu waxay tahay waa maxay positionka ay dawladdu arintan ka haysato horta inaan dawladda taageerno waxa ka horeysa dawladda positionka ay ka qaadatay arintan maxay tahay ma sax bay u aragtaa mise qalad bay u aragtaa in Etoobiyaanku ay dalka soo galaan haday sax u aragto iyo haday qalad u aragto markaas aynu kala go'aansan karnaa keen qaadana hadii madaxweynuhu caawinto haduu yiraahdo dawladda Etoobiya dalka inay soo gasho waa qalad madaxweynaha waynu raaci karnaa haduu yiraahdo inay soo gasho waa sax waynu weydiin karnaa maxaa dan ah inuu ugu jiro laakiin madaxweyne aamusan in qadiyad aan ogeyn positionka uu ka qaatay in lagu taageero ma garanayaan meesha ka imaatay aqliga saleemkan ima sheegayo hadii dawladdu ay soo istaagto banaanka soo istaagto ila tiraahdo arintan waa qalad dalka laba soo faragelin karo dal madax banaan baynu nahaa dawladda waynu garab istaagi karnaa positionkeenu fahmaynaa ay qaadatay laakiin dawlad aamusan oo aan positionkeeda la ogeyn sideen ku maxaynu taageernaa shantii sano oo la soo dhaafay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ka seexan waayay oo uu ka ladi waayay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa gobolka Gadan la geeyay everyday warbaahinta laga hadli jiray dalacayn aflagaadayn qabyaaladayn siyaasadayn ciidan ayuu Xasan ku suntaan dhowr sano soo dhaafay maanta awood u leeyahay Xasan inuu ka hadlo ciidamada Etoobiyaanka ee dalka soo galay ma ka saari karaa siyaasadda ma leeyahay waxa iska daa positionka uu ka qaatay seeb uu arkaa ciidamada Etoobiyaanka dalka soo galay gaday soo galeen bakool bay soo galeen hiiraan bay soo galeen muuqaalka qaybta kala ku sheegi doona waxa ay doonayaan iyo wax laga fili karayo from this point laakiin ma ka hadli karaa way waa maya haddana marka aan ogeyn dawladdu halkay u socotay waxa ay doonayso dawladdu haddana ogeyn ma garanay waxaynu taageerayno arintan soo gelitaanka Etoobiyaanka qaybtan hore ee aamusnaanta iyo dawladda aragtideeda qaybta ka xanuunka badan anigu aan ka seexan lahaay waxay tahay oo aan marnaba u taageeri karin Etoobiyaanka iyo waxa ay wataan Etoobiyaanku heshiis siyaasi ah naga dhaxeeyay laakiin anigu Etoobiyaanka ma aan jeclin dadkana inay soo galaan ma doonayo inay wanaagsan yihiin ma aaminsani laakiin dadka waa la iska moosaa dad aynu moosnay oo aynu siyaasad iyo macaamil ku moosnay ba oo dal laga qaado ma badan baan ka qaylinayna dad baa u fasiray Etoobiyaanka jecel yihiin ciyalka xabashida weeye reer nabad nolol waa kan oo waxaan aragti iyo aqoon midna lahayn arinta marka xanuun kale ayaa waxay tahay oo aan ka seexan lahayn waxay tahay hadii Etoobiyaanku ay dalka dhanba qabsadaan oo shacabku is abaabulo oo la dabca in laga hortago yaa ummadda ku hogaamin karaya in nimankan dalka laga saaro cidda in hogaaminaysa
oo ay horkacaysa waa cidee mar walba oo Ethiopian ama waxyaalo noocan oo kale revolution dalka uu ka dhaco oo shacabku inuu dagaalamo loo baahdo waxa mar walba la heli jiray dad lagu kalsoon yahay oo aynu raacanayno heli jiray xakiimtii darabta ha ahaato xilliyadii kala ha ahaato ururada islaamiga darabta ha ahaadaan oday dhaqameedyadii darabana ha ahaadaan qabaa'il dad ba inuu hogaamin jiray aynu raacano markii xaalada noocan kale ay jiraan maantayto yeenu raacana yaa maanta inuu hogaaminaya mal shaab baynu raacana mise xasan sheekh maxamuud ka aamusan baynu raacana xageenu aadnaa dalkanaga waa la soo gala dhibaato ka jirta fargelin baa lagu hayaa Ethiopian baa soo galay ma naqaan waxay doonayaan yaa maanta aynu raacana oo inuu hogaamin karaya oo cadawga dalka soo galay hadaynu dabcan caawa ka dhalan yaraahan inuu sababaldo yaa in horkacayo ma naqaan waa sababta dadku la aamusan ba waxay tahay ma garan karno cidda aynu raacana caawa oo aragtida meeshan taala cid ummadda ay aamini karto in horkacana ma garanayno wuxuu dalkeenu marayaa xilligii ay iska soo geli jireen dawladaha shisheeye oo dawlad wax la weydiiyaa aysan jirinin 2011 2010 2009 2006 dawladihii ku meel gaarka ahaa xilliyadoodii ayaa soo xasuusay dalka la iska soo galayay cidna waxba la weydiinaynin wixii la doon laga sameeyay halkii baynu ku laabanaa dawladeenu way aamusan tahay dalkii baa la soo galay ciidamada la soo galiyay balaaya socota shaqalku malahan maxay ka hadlayaan China iyo Mareykan bay ka hadlayaan wax isku hayaan waxa China iyo Mareykan ka galay madax banaanida dawladda China ayuu xasan waraaq soo saaray subax dalkiisa baa madax banaanidiisa isku haystaa soo farageliyay ciidamo uusan ka warqayn baa jooga ciidamo aan la aqoon halka u socdaan ayaa soo galay kaba hadli karay wuxuu ka hadlayaa China ka hadlaya finally waxaan ku soo koobayaa ugu dambeyntii waa maxay hadafka Ethiopianku ay leeyihiin maxaa laga fili karayaa waxa laga fili karaa nimankan maxay tahay anigu runtii red flag ba ii muuqda calan cas oo ay u baahan tahay ummaddu inay ka kacdo oo problematic ah oo hadhow Soomaalidu ay price weyn bixin doonaan ayaa ii muuqda dagaalka inta uu san bilaabanna waan idin sheegay haddana markaan ku cilaya dadka Soomaaliyeed ee meelaha kala duwan ee Soomaaliya jooga ee u qaba ciidanka Ethiopianka ee hadda Soomaaliya soo galay inay gobolka Gedo kaliya u socdaan ninka u qaba ay xamar fadhiya caawa oo isla reer Gedo waa reer hebel shaqo kuma leeyid waxaad ogaataa meel alla meesha joogto ayay problemkan imaanaysaa waxay Soomaalidu dhalinyaradeedii noqotay sidii loogisida dabeecad waxay leedahay markii mid ka mid ah la cunahayo way fiirsanayaan bahalka cunaya libax baa cunaya way fiirsanayaan qaar ma garanay waxay aaminsan yihiin logically ma kaasa ku filan bay aaminsan yihiin ma adiga laguma socdo aaminsan yihiin ma garanayo waxay aaminsan laakiin loogisida dabeecadda leh ayada xoog leh oo libaaxa ama hal dawaca ah ka dhigan kara midka ay ka cunayaan ayay ku fiirsanayaan marka ugu dambeysana qayb badan oo ay ka mid ah oo fiirsanayay maalinka mid ka mid ah la cunayay ee dib loo cundaa maal mid baa la cunaya maal mid ka la cunaya maal mid ka la cunaya waa cycle way ilaa dil rabo laga dhameeyo Soomaalidu waa dhaqanka loogisida bay leedahay waliba dhalinteeda yaryarka ah kuwan arkay maanta ku hayay reer Gedo Ethiopianka ayaga taageersan in la soo galo xaq bay u leeyahay hal qabsado ana shaqalku milo maxay inaga reer Muqdishoana laakiin the bottom line waxa weeye reer Gedo la cuno reer Koonfur Galbeed la cuno reer Hiiraan la cuno reer Galmudug la cuno meesha la soo reer Muqdisho marka ma ahan arin aad ka maran doonto ma aha dadkoodii waa weynaa ee wax garanayay ama diinta yaqaan ama cilmiga yaqaanina kulligood qaa'im wadaniin bay noqdeen Soomaalida dadkii yar-yaraana kulligood ogisi bay noqdeen waa dalba oo yaa ku leh waxaan ku laabanayaa su'aashii ahayd maxay Itoobiya laga fili karayaa aysa doonaysaa xageesa u socota ilaahay baa garanaya laakiin aragtidan ayaan ku dhisayaa Itoobiyaanku waxay u socdaan inay Soomaaliya koonfurteeda oo dhan ay qabsadaan meelaha target hadda ay soo galeen waa Bakool iyo Hiiraan iyo gobolka Gedo laakiin waa albaabka laga soo galo weeye xuduudaha ah ee meesha loo socdo albaabka ma ahan guriga gudihiisa loo socdo dalka ah aragtidan ka aaminsan waxa weeye waxay Itoobiyaanku doonayaan inay laba fariisimood ba qabsadaan bay doonayaan maamulka Koonfur Galbeed oo dhan way qabsan doonaan gobolka Gedana way qabsan doonaan gobolka Hiiraanna way qabsan doonaan gobolka Galguduudna qayb badan ka mid ah bay ka qabsan doonaan gobolka marka Gedo la yiraahdo markay qabsadaan haddana qayb badan ka mid ah caasimada ayaga haystay awal baciid ma ka joogay haddana aeroportkii laga soo galay bay ka qabsadeen intaas Gedo ku filan hora loo soconayaa Baydhabo na way qabsanayaan markana way qabsanayaan Baraawana way qabsanayaan targetku marka waxa weeye in Baraawe ama marka mid ka mid ah labada dekedood ay nimankaas u qabsadaan isla markaana ay isticmaalaan halka aad dhageysta waa in labada dekedood ay qabsadaan
isla markaasna ay u isticmaalaan danahooda shakhsiga ah waxaan aaminsanahay inay investment ku sameeyaan dekadaha ay dhisan doonaan anagoo daawanayna kabacdina ay si qasab ah ciidamadii ay tababarteen oo ahaa ay sheeg maxay ciidamada badda Ethiopia ay hore u tababaratay ee ka shaqeysay inay baddan inta geysato ku difaacato waxna kala degto wadadaasna ay wax xirta marsato inay dekad kamida dekadaha Soomaaliya waliba Baraawe iyo Marko hadii labadaba wada qabsan Baraawe iyo Markana xoog bay ku qabsan doonaan waxna way kala soo degi doonaan wayna maal gashan doonaan maamulka koonfur galbeed oo xoog bay ku haysan doonaan waa arrin marka hadda dadka ay fani u arkaan laakiin muddo badan ka bacdi ay Soomaalidu ka shalaay doonto sida ay dalkooda gacantooda ugu soo celin